of all, it's great to be here in Somalia for my first time, and thank you very much for having me on your show. wax weyn bay ii tahay inaan Soomaaliya joogo. waa markii ugu horeysay oo aan halkan imaado. waad ku mahadsan tahay sida barnaamijkaaga igu casuntay. saakay waxaan la kulmay madaxweyne Farmaajo. waxaan aad iskula fahanay wada shaqeyn. waxaan kaloo aan u sheegay in aan caawinayno Soomaaliya gaar ahaan dhinaca ammaanka. wixii ugu horeeyay aan ku soo qaaday fariinteeda waxay ahayd ammaanka. sidoo kale waxaan xoogga ku saaray dawlad xumida, arinta al-shabaab, abaaraha iyo ammaanka. fariinteeda waxa ay tahay in aan sheego in UK ay bixisay lacag loogu talagalay abaaraha. Having been elected to a few things in my life, now is the time when you've just been elected. Now is the moment to do the thing you need to do. So I hope everybody will get behind and get with President Farmaajo and so that he can. maanta markii aad timid Soomaaliya waxaad la kulantay madaxweyne Farmaajo. kulankiina maxaa si gaar ah diiradda loogu saaray? We discussed he's just been elected. waxaan ka wada hadalnay doorashadiisa iyo inuu haysto taageero caan ah. hadda waa waqtigii loo baahnaa in ay dadka ka helaan wixii ay ka wada hadleen ama ay ka sugayeen. Soomaaliyana uu horay u wado. So I hope everybody will get behind and get with President Farmaajo and so that he can take his country forward. dalka UK ciidan ayaa ka jooga Soomaaliya. doorkooda waxa uu yahay inay taageero ay siiyaan ciidanka Soomaalida iyo kuwa AMISOM. guulaha ilaa ay hadda ay sameeyeen maxaad iiga sheegi kartaa? Well, the UK troops in Somalia, their job really is to provide assistance, to provide training. ciidanka UK ee Soomaaliya waxa ay qabanayaan taageero la siiyo ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM. waxa ay qabanayaan shaqo aad u wanaagsan. waxa ay ciidanka barayaan sida hubka loola tacaamulo iyo dagaalka al-shabaab. Of a kind that are used by al-Shabaab. All sorts of training is going on, and that's very. sida aad ka warhayso abaara ayaa ka jira Soomaaliya. doorka UK ee dhinacaas maxaad iiga sheegi kartaa? We're giving 110 million pounds. We already did it. We're the first. waxaan bixinay $100,000 oo loogu talagalay in cunto lagu iibiyo si loo siiyo dadka abaaraha ay saameeyeen. lacagtaasi hore ayaan u bixinay. dadka u baahan cuntada ayaa la siin doonaa. waxaa kaloo jira wadamo kale oo nagu soo biiray oo lacaga bixinaya. That's already having an impact. We think other countries now need to follow suit and join us. beryahan oo dhan waxaa la hadalhayay shirka London ka furmaya bisha May. maxaa diiradda lagu saarayaa? It will focus on the things I've just talked about. So, number one, unity of Somalia, a security architecture for Somalia. waxaa diiradda lagu saarayaa midnimada Soomaaliya, ammaanka, dawlad xumida, musuqmaasuqa iyo dhibaatooyinka dhinaca federalismka. waxaana ku hanweynahay in wax badan laga qaban doono dhibaatooyinka jira. We want to see confidence in the international community about investing in Somalia. maxay tahay fariintaada ugu dambaysa ee aad u jeedinayso Soomaalida? My message to the Somali people is Britain is with you. fariinteeda waxa ay tahay UK waxa ay taageeraysaa Soomaaliya sanado badan. waana sii wadi doonaa caawinta dadka Soomaalida.